qofka muslimka ah inuu noqdo qof waxtara waxa uu qofku qabanaya waxay ku xidhnaan doontaa mas'uuliyadiisa iyo inta uu awoodo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas xadiidkaasi sheekh al-Albani xasan ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ahi waa mid lagu soo hirto yani dadku ay ku soo talagalaan ama waa mid dadka soo duma soo dhaweeya isna la soo dhaweeyo dadka badhba haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshuu joogo qofka mu'minka ah nabigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn dabeetana nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa u khayr badan ka u nafciga badan ka u waxtar badan dadka waxa u khayr badan ka u waxtar badan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay la sheegay nin dibqallooc qaniinay markii dibqallooc qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo naga qoladayadu waxbaanu tufnaaye dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye ma ku akhriyaa bal soo bandhig buu yidhi waxaanad akhridaan muxuu yahay wixii buu sheegay dabeetana wuxuu nabigu yidhi ba'si kuma jiro tanaad sheegtay ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal ciddii awooda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ha taro xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah dadka yaa alla u jecel yahay acmaashase maxaa ilaahay u jecel yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkanu xasan ligayri uu sheekh al-Albani ku sheegayo wuxuu nabigu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sururun tadkhiluha calaa muslim qof muslima aad farxad geliso ka farxisid takshif canhu kurba dhib haysato aad ka faydid aw taqdi canhu daynan ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid aw tatruda canhu juucan ama gaajo aad ka quudisid wala an amshiya maca akhin fi xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada almasjidi shahra wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bil ku ictikaafo waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof muslima baahidiisa inaan gudo waman kadama gaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa malaa allahu qalbahu yowma alqiyaamati ridaa qofka cadhadiisa qarsada isagoo awoodi kara inuu guto guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyuu ka buuxiyaa qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaana wa tacaala gomadiisa sugaa saddexdan xadiid aan akhriyay alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaanoo sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alla u jecel yahay inay tahay dadka kuu ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan
nafcigaynu ka warramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo. bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyada iyo rususha, waayo ilaahay baa wuxuu soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba. oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxdaa uu ka lumo, waxaa la soo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo, noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo. idan nafciga qofka muslimka laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba. nafci aakhira u weyn oo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri ina alinsana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. ilaahay intuu dhaartayba wuxuu ku dhaartay bini aadamku inuu khasaare ku sugan yihi. waxaa ka soo reebay cidda aan khasaaraynini inay tahay dadka laga hela iimaan iyo camal saalixa iyo xaqoo ay isfaraan iyo wixii dhib xaqa ka soo gaadha faritaankiisa oo ay ku sabraan. cidda caynkaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday. idan dadka waxa u anfac badan leh khasaaraha la hubo ciddii bini aadamka ka badbaadisa. khasaaraha la hubo waa khasaaraha ilaahay uu ku dhaartay walcasri ina alinsana lafii khusr. ilaahay baa ku dhaartay subxaanahu wa tacaala. haddaba waxaan leenahay dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto, noloshu waa wax fudud oo la habayn karo. haddii dadka inta ugu badani inta iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahdo waxa qabtaan ummadaasi ma horumarto. مثلا نبي محمد مركو جوغي عليه الصلاة والسلام صحابو الدين الشيغي مية اسكفر ديانو يدهدين دين نبي با ميشي جوغا مايا إيانا ويسي شيغيين سيدا اوغيد باي دمان تود شقا هيين دمان تود شقا داي قبتين. مثلا أبي بكر عشرة المباشرين رقي هو وين الرقم إذا وحا كاني أبي بكر بس إسلامي ونبقى كان عليه الصلاة والسلام نبقى نوسي هرمري. صحابة nin waliba shaqada intuu garanayay buu qabta. mid dagaal ka qayb gala, mid hogaamiye dagaal noqda. miya waligan kutubta xadiiska ku aragteen can Khalid bin Walid sama maydan maqal muxuu ku caan baxay. Khalid oo xadiis warinaya ma maqasheen can Khalid radiyallahu anhu oo la leeyahay lagama yaabo inaad aragto. haddana cinda almuslimiin waa rajul macruufa cinda almuslimiin daaya taariikhda maanta bini aadamka kuliyaadka istaraatiijigeeda ee casaakirta khidadkiisii baa lagu dhigaa wax ka mid ah. wixii uu ummadda u qaban karayay buu qabtay. kuwii cilmiga bartay waxay ummadda u qaban karayeen bay qabteen. kuwii tala garanayay waxay ummadda marka qof waliba marka uu ku talagalay inuu wax qabto way guulaysataa. haddiise مثلا diinta faafinteeda aad tidhaahdaan aw hebel iyo aw hebel baa mas-uulka ah dee diinta dadka inta kalena way sugayaan dee diini faafi mayso. aw hebel intuu gaadhaya dadkii muslimiinta soo islaamayay markuu 3 casho nabiga la joogaan buu baxayay dabeetana isagoo qabaa'il dhan wado soo islaamiyu keenayay. dadka saymiga jooga 40 sanaad muslim ahayd weligaana qof maad keenin. 40 sanaad muslim ahayd waayo adigu in xilkuba ku saaray baan rumaysnayn. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tilmaamaya dadka waxa u khayr badan dadka u nafciga badan leh u waxtarsan. waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar. xataa xayawaanka waxa la taro xataa xayawaanka xadiista waa ku aragteen qof dumaroo la yidhi ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaafay. ay bay wax tartay dabeetana appreciation waa la qiray waxtarkeedii fashakara allahu lahaa baa la yidhi. ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay. nebi yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama waqtigu koo kooban yahay. nebi yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday iyadoo la og yahay inaanu dambaabin. ثم بدا لهم من بعد
ilaahay wuxuu tilmaamayaa markay u caddaatay inaan waxba samaynin bay xukumeen way xabsiga dhigeen muu odhanin nimanka ay xidhay waa gaalo xabsigoodii baan ku jiraa nimankaa wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan ee ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wadakhala macahu sijna فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لبويلو كم إذا دتك حبسي غلق علي أيا أيمي ريا أي كسر رياضين بيلي النوفصر رياضة والله فصيرة وعلمي لبرته waana dhici kartaa riyadu sidii aad ugu riyootay practically inay iyadiiba noqoto aan ta'wiil u baahnayn waa dhici kartaa inay mid ta'wiil u baahan tahay waa dhici kartaa in shaydaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootay baanay wax qiimo la ahayn si kastaba ha ahaatee nebi yuusuf riyay u keeneen riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen maxay raaciyeen innaa naraaka min almuxsiniin isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeyahay waxaanu kuu aragnaa qof waxtara oo ixsaan sameeya inaad tahay macnaheedu waxa weeyaan xabsiga gudihiisiibu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka waxtaraya wuxuu tijaabiyey inuu iyagana waxtaro laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn buu uga bilaabo marka hore wuxuu u sheegay ninkuu yahay inuu aabbayaal iyo awowyaal nebiyaa ku abtirsado dad tawxiidka rumaysan inuu yahay dad gaala inuu ka yimi dabeetana intaanu riyadii fasirin wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaayee dadkani ugu baahnaayeen yaa saaxibaya sijn aarbaabun mutafariquuna khayruna min illaahi lwaaxid warma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh mise ilaah keliya in la caabudo maa tacbuduuna ilaa asmaa'an samaytumuuha antum waabaa'ukum wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay ilaahay keligii inay rumeeyaan taasina inay tahay diinta quman kow waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradoodii adduunkooda badbaadinaya mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay kii yidhi khamri baan walaaqayayna oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa adigu khamrigaasaad walaaqi doontaa boqorkaad u shaqayn doontaa kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubus anigoo sida oo shimbira cunayaan ayaan ku riyoodayna wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa dabeetana waa lagu salbinayaa saasaad ku dhimanaysaa idan labada nin nebi yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay islaamaan nebi yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa waayo waa meelun baan rabaa inaan taataabto waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa muu odhanin haddaanana fursad haystaaye haweenanana god kale ku ridaa isagoo yar bay qaadeen god bay ku rideen waa kaga tageen dabeetana wixii oo mashkilada uu soo maray dee iyaga u sabab ahaa godkii baa laga qaatay sidii xoolaha la kala iibsaday nin boqora baa iibsaday gurigii boqortooyadu ku noolaa islaantii guriga joogtay baa hunguraysay waa diiday kufsi waa istidhi wuu cararay waa marada ka daldallaacisay albaabkaa lagula kulmay dabeetana isagiiba haddana la xidhay iyadoo laga markhaati kacay inaanu isagu waxba dhibin ayaa isagii la xidhay kuwii waxaasoo dhiba u sababoo baahan baa u yimi maxay leeyihin قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ويوي مادين راشن بوسيي هدنا العقد أي ستين وقدري وصار نقضي أخيرا مركي ولالكوت كلا حريرة أي وحي لين نكاغن تلاد هيا ويل كان يري أبو دا أبو لي أمت كايو كبدل إنا نراك من المحسنين أريجا بنوشة ده مركا أريجا لبادي إننا حبسك الله قال يكوي رهدين أيو كليهين يوسف ولا الذي وحيلين إنا نراك وحنكو أرجنا من المحسنين كوا سما فلاين أتكميتاه توانين كي أيقود ككور ردين وهدنا ولي مرة وكوبين أبورتين
ومركو ويلك كرهبي وحيدا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سقوا مدحوينا بغر وماشي تاجن بي وحيلين إن يسرق هدو يكن وحضي midka horeeyay walaala Allah ahaba jiro tuuga way isagan hor taagan ay leeyin mid hore tuuga ba jiray waxa soo dhan uu qabanin ee waxbuu taray saawgeed ba walaaladii dhibta u geystay waxay leeyin inna naraka min almuhsinin ku xabsiga la galay waxay leeyin inna naraka min almuhsinin inta waxa sii dheer nabi yusuf isagoo xabsiga ku jira oo wax dambiyana aan galin ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyooday ayuu yiri riyada ha la ifasiro riyadii boqorka dadkii way fasiri garan waayeen adghath wa ahlam bay ku tilmaameen tan fasirkeeda garan mayna bay yiraahdeen kii uu yiri barigii hore waad badbaadaysaa boqorka u shaqeeya xasuustay markii hore war boqorka arrinkayga u sheeg buu yiri waxba uu sheegay oo iska ilaabay laakiin imika markii riyo la soo qaaday buu xasuustay dabeetana wuxuu yiri hal ay diraaniga ana yusuf tagay ninba halkeer jooga xabsiga oo riyada si fiican u fasirayay aniga hal ay diro ninkii baa yimi wuxuu leeyahay yusuf ayuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sunbulatin khudr wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun waxaanu aragnay todoba boqorkii wuxuu ku riyooday baa la yiri 7 saac oo naxnaxsan oo 7 liita cunayaan iyo 7 saabuul oo cagaaran iyo 7 kale oo engegan riyada fasir buu yiri waxa laga yaabaa dadkii inaan ku noqdo way wax gartaan hadii lagu xidho oo dawlad gaaleed ku xidho oo lagu yiraahdo ra'iisul wasaare ama madaxweynaha baa riyooday oo riyada la rabaa in la fasiro waad waliba ogtay riyada inay ka waramayso dhaqaalaha wadankan iyo sida la yeelayo maxad yeeli lahay adana waa gaalaha maratay naga dah nabi yusuf mu oranin war nimankan gaaleed ha iska madhaan ee uu riyadii buu fasiray mu oranin horta xabsiga iga sii daaya haddaan rabtaan inaan waxidan tabo mu gorgortamin xabsiga haddaan ka baxo baan waxidiin sameynaya ma ku oranin wuxuu taagan yahay anfacu naas inuu noqdo khayru naas anfa'uhum linnaas wuxuu u sheegay wuxuu ku yiri 7 sano oo barwaaqo idin soo mari doona 7 barwaaqo wixii goosataan saabulkiisa u daaya midhaha inta cunaysaan mooyaane inta kale sideeda meel ku dhiga waxa ku xigi doona buleey 7 sanadood oo kale abaar ah oo 7 sanadood ee abaarta waxa cuntaan 7 hore wixii ay beereyseen baa la cunayaa sanad kale ku xigi doona oo maxay barwaaqo ah oo nimankan 2 7 un bay u sheegeen sanadka dambe xaq ka keenay dee hadii 7 barwaaqo tahay oo 7 ku xiga abaar tahay ka ku xiga waynu noqdaa barwaaqo hadii kale wuxuu oran lahaa 8 abaar hadii soo maraysa maadaama uu yiri 7 abaara waxa macruuf sanadka ku xiga marka inuu khilaafa hada 7 uu yahay nabi yusuf wuxuu sheegay 15 sanadood dhaqaalaha wadanka sidii loo maamuli lahaa 15 sanadood ee mustaqbalka soo socda iyo dhaqaalaha wadanka kan Masar la yiraahdo sidii loo maamuli lahaa buu sharxay waxaan u sheegay dhibaatooyinka soo socda waxa laga baxayaa inay tahay 7 sanadood ee hore kaydka ugu badan in la dhigto in yar oo la cuno mooyaane 7 abaartee dambana kaydkii la dhigtay in lagaga baxo dabeetana sanad baa ku xigi doona waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynama hal wartahal meel kasta uu dago ama uu tago qofka mu'minka inuu yahay qof wax tara Abu Bakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta ayuu sidii iska hijrood ard al-habasha iyo meeluna ka bax maku ka bax barki al-ghamad meel la yiraahdo markuu marayay ayaa waxa la kulmay nin la yiraahdo ibnu daghina qabil qaar la yiraahdo oday aqal suldaan uu
وقبيل قالت دبتنا أبي بكر بوحكوا إلى أين تريد يا أبي بكر حقاك صعطة أبي بكر بوحوا أخرجني قومي من هذه البلدة فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي تلقي باي سو صاري ومكايغا سو صاري waxaan rabaa an asiixa fi lard siyaaxada waxa la yidhaahdaa culamadii hore waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay inuu cibaadaysto meel gaara baan ku soconin iska dhaqaaquno meeshaad aragtaba ilaahay ku caabudo meeshaas kaga tag ay bakar wuxuu leeyahay maka waan iskaga imi waxaanan rabaa inaan iska socdo uun ilaahay dhulkiisa maro oo aan ilaahay caabudo waayo tolkay baa soo saaray وفيرسو ابن دغينة وان قالت او اضي قبيل قالت كتاليا وحكو يري ان مثلك لا يخرج ولا يخرج ادي قو كلبو الى ابي بكر ننتولكي كتغنا متهد نن لا سارنا متهد ادنك وما عنتو ان تسكتكتو نن لا سارنا متهد وايو ابي بكر وحكو لي مركا فانك تكسب المعدومه وتصل الرحم وتحمل الكل وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق أبي بكر وبولا يادو حطهي نن دد كفر مرنا وحبها سنين واحتره وهذا يقول نن رحم كي قرابة دي تلك حديد حقال بحديدية وهذا يقول قفك علوس يا مدين أمام مج أما وحلاها يستو قف كرجع عليسك وهذا هدلي بولي مرتدى قف صورة وهذا هيد قف وجوجر جاردت كنوائب الحق أبي بكر مركا وحكوسي فيني قف بني آدم واحترقوحي وقبل شرودن وقفته وأنا نن مشرك أنك ساقو شيء يعني أبي بكر روحها دتك وأنفع بدن له بالشيء كذا باهن كذا ليته كذا علوس كذا مسافر كول بوحتره ساوغيد بولا إنك قيمها له بني آدم كسيدا وحطر أن الله صار معها أنيقه أيا إيما كانت هايبوري أي بكر وسوع عليي مكو كاري سوغو إلى مدينة وطا قريش بيسوغو ياري وهذا قريش إلى جيسته أبي بكر وما كانتي عند أبي بكر طابتاري وطابتي عرفتنا ما كانتو داد بيسوغو احترام شري ولي بمركو نينكو ياهي nin odayo reer ka taliya Abu Bakar sibu Makka ku yimi in kasto markuu waqti joogay gurigiisa hortiisa masaajid yar ka samaystay nin markuu tukado aad u ilmeeyay buu ahaa dabeetana Quraysh ba ka ishtakoto waxay yiraahdeen intay ninkii u tageen Abu Bakar dumarkii iyo carruurtii dadka buu naga fitnaynaya halkaas buu maanta dhanka ooyay quraan akhrinaya dadku ninkan weyn ooyay waa raacayaan gurigiisa ha galabay yiraahdeen hadduu doonayo inuu ku jiro magangaliyadaada gurigiisa ha galo wuxuu doonayaa ku sameeyo marka uu u yimi wuxuu ku yiri Abu Bakar waa laga cabanaya anigana waxaan isku ogeyn inaad magantay tahay tolka inaad dhiftano kuwa gurigaaga iska gal Abu Bakar wuxuu yiri ama aan ku soo celiyo magantaadi dabeetana wuxuu yiri Abu Bakar waradna maganimadaada iska qaado anu mabda'iga waan wadanayaa aduguna free batay maanta laga bilaabo xil kuma saara waxaan uga dan leeyahay xadiisku waa dheer yahay laakiin anigu meeshan u jeeda waa maxay nin mushrik ba Abu Bakar wuxuu uga marxaati kacaya caynkan hatta nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam intaan mucjizaad kan badani ka muuqanin dadkii ugu horeeyay islaama maxay ku rumeeyeen مثلا dadkii ugu horeeyay islaama waxay noo dhakan Khadiija kamid ahayd ku nabigu yimi alayhi salatu wasalaam zamiluni isagoo leh idada oo cabsanaya ayaa waxay tiri wallahi la yukhzika Allahu abada ilaahi baan ku dhaartay alle waliga ku hoojin maayo waayo qof wax taraad ahayd bay leedahay intan Abu Bakar lagu yiri ilaag bay ku tiri Khadiija waxay leedahay nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam oo la waan cabsanaya ba waxay ku leedahay ilaahi baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay waxa tahay mid ka waxaysan wax siiya ti qofkii qaraaba xidhiidhiya qofkii culays haysta culayska ka roga qofkii marti soora yani bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saadaradeed ma suurtagalaha in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku hoojiyo
taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen ambiyadii nabiyullaahi maxamed noocuu ahaa abibakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyey dad waxtara bay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad waxtar ku ah waxtarku mid aakhira ha noqdo ood qofka naarta ka badbaadiso dee waa waxtarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yar oo yahuudiya wiil yahuudiya wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxaa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay wiilkiibuu soo booqday dabeetana wiilkiibuu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistay buu wuxuu ku yidhi war yaa wiilow aslim war iska islaam wiilkii baa aabihii eegay markaa aabihii baa wuxuu ku yidhi markaa atic abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yeel waxa uu kuu sheegaya abalqaasim waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiisi dabeetana wiilkii baa islaamay markaasuu nabigu wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey aanu gaalnimo ku dhimanin yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegay ilmahaa yare xanuunsanaya ama wiilkaa xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxaa leenahay dadka in wax la taro oo waliba dadku waxtar waxay ugu badan yihiin ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqote islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamka oo dhan nicmada la jeceliyo wanaag iyo khayrka waxaa dhacay ilaahay wuxuu qur-aanka ka warramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta mu'min suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka warramay ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalo uu deganaa lama sheegin wax taytaloo watay lama sheegin ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa min aqsa almadinati rajulun yasca magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimi ninkan magaaladii uu joogay 3 rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan 3 rasuul baa la soo diray 2 la soo diray 3 baa lagu wixiiba waa beeniyeen adigu haddaad joogto magaalo 3 rasuul loo soo diray oo 3daba la beeniyay maxaad yeeli lahayd inta nagu badan waxa dhaw ma nimanka rasuusha diidaaniga aqbalaya soo ka un ma tirahdeen يعني مسؤولية اسمات صارت ما دام 3 رسول بلديدي والله ده ماشي 3 رسول لديدي مشقة كبرنان لكن كان إلهي القرآن كلا آخرنا يا إلى قيام الساعة قصدي سوى حلوه قري وقف اسكت دين ومسؤولية قاضي كأنفعه اسمه أوران 3 رسول بماشي شوقي وحو قرتي إن إسجنا حل ساري وغيران إنه ضدك كوي هذا وروه يعني من كان راعي سببتك الراعي سنة واردي شقية وحلي يا قوم اتبعوا المرسلين والرسل الراعبوا لي وهو ما حي سببته اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لا بس سببات بو الراعبوا لي نمكن وحبا إذا كمرة بعد مركو هوري بني آدم كهدي يقول هدو يسيرادو نكن يدقالو كوجود دونيا يا كرسي كوجود دونيا يا وحبو أديك كاد دونيا هدا السيرادو وحلقة يمينات هراو الراعين وتلاقي نكن يدنتي سوتا مركا وحلي والرسل شو مركو هراو وحبا إذا كمرة ربطه وامر marka labaadna muxuu ku tilmaamay wahum muhtadun wa hanusayin raaca qisada ma sharxayo laakiin waxa uu gadan leeyahay inta dambe ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca waa ka may aqbalin isagu tawxiidkiisa buu qartay wuxuu leeyahay anigu nimankaasi xaq bay sheegayaan waan raacay qisada ka muuqata waa la dilay ninkii waa la dilay ilaahay baa ka warramaya markuu dhintay sidii uu fakarayay markuu dhintay aakhira qabtay sidii uu fakarayay baa ilaahay inoo sheegaya wuxuu ka fakaraya qiila adkhul aljanna baa ilaahay leeyahay waxa la yidhi war jannada gal qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin tolkii weli wanaag buu la raadcaynaya wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaaye inay tolkay ogaadaan waxa nimco ilaahay siiyey saa dambigu igu dhaafay iyana ha islaamaane
يعني عقله بني آدم كو انت بدنا أرسو بكفكرة وكوي واحد كو سمية دونا آخرة ودر لكن يقول للدلي وقردر اللي قد دلي وصدح رسول إبانيين ووحو يري حق هيدو قردر اللي قد دلي هدرا أيها هدنا وحو كفكرية ورمنكي يا وانا قان هلاي وشيغا يقول الرعاني marka waxay tilmaamaysaa qofka mu'minka inuu yahay dadka qof khayrka la jecel dadka qof raba inay wanaaga qaataan khayrka la jecel hadaba qof kasto muslima xilka saarani wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda haduu yahay mid adduunyo iyo haduu yahay mid aakhiraba dunida dadku waxay ku islaaxi lahaa say nabad u heli lahaayeen kuwada ducafada si loogu gargaari lahaa kuwada jaahilkaas wax loo bari lahaa kuwada aqoonyahankaas loo tilmaami lahaa ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo contribute kareeyo wanaaga ayay ummad jirta noqotaa ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadam mas'uuliyeen aan isaga waxba saarayn qol kalena laga sugay inay wax hagaajiyaan way jabtaa waana Soomaalidu say hadda u badantay dad maqano inaan garanayn meel ay ku maqan yihiin baynu sugaynaa wadankeena iyo dalkeena iyo dadkeena bay inay hagaajiyaan inaguna waxaanu rumaysanay qof waliba inaan isaga mas'uuliyad saarayn ilaahina wuxuu inoo tilmaamayaa quraanka ninka saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysanin mas'uuliyad saaranta xil isa saaray waliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsa al-Madiina magaalada halka ugu dambaysa sifadu ku yimi haddana ahayd qof mas'uuliyadda xambaarsan oo degdegaya ilaahay wax calaamadan uma yeer rajul wala tankiri rajulun bal tilmaamay oo yas'a nin ordayo u buuha waxaynu u baahanay marka ayuha al-hibba dad wax taraynayno noqono nabiguna alayhi salatu wasalaam wuxuu tilmaamaya da inaad wax practical oo ummadda u qabatee haddaad tilmaamto uun ninbaa nabiga u yimi sheeganaya dhib wuxuu raacanay inuu u baahan yahay dabeetana riwaayadka qaarkoodna nabiga yidhi bay riwaayadka qaarkoodna nin kala yidhi mahma takun ninbaa wuxuu leeyahay war hebel u tag waa laga yaabaa inaad isaga wax ka hesho nabigu waxba ma hayo markaa alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ninkan inaanu waxba tari karaynin laakiin mu odhan in waxba ku tari karin maayo iska tag ee waxa la yidhi bal hebel u tag waxa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay hebelkii buu u tagay dabeetana dantiisii buu ninkii kale u fuliyay markaasaa nabiga loo sheegay nabigu wuxuu yidhi man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ili xadiidkii muslim man dalla ala khayrin qofka dadka khayr u tilmaama ninkan waxa loo tilmaamay waxbuu ku weydiisto waxa tiri waxa ma hayo laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel simar waa laga yaabaa inaad ninka ka heli karto mujarrad waa tilmaamtay adu waxba maad bixinin tilmaamtaasi hadii ay guul keento nabigu wuxuu leeyahay man dalla ala khayri wanaag cidii dadka u tilmaamta falahu mithlu ajri fa'ili kii sameeyay bal damit oo kii sameeyay ajarkiisii uu leeyahay aduguna ajar u dhigma ka sameeyay ajarkiisii baad leedahay idan ama nafci adduun ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo qofka muuminka waa inuu naafic noqdo waa inaad marka hore ka fakaraysaa dadka sidaad wax u tari lahayd Ali ibn Abi Talib ayuu nabigu ciidan u dhiibay dagaal baa la galay Khaybar meesha la yiraahdo labadii maalmood hore waa la furan kari waayay wuu adkaaday dagaalkii maalin saddexaadii ayuu nabigu sheegay alayhi salaatu wasalaam nin ilaahay jecel yahay ilaahayna jecel inuu raayada loo dhiibi doono Ali xanuunsan ayaa loo yeeray nabiga u duceeyo ku tufay waa bogsaday Ali baa la yidhi ciidanka hogaami dagaal buu galaya haddaad janan dagaal galiso maxaad kula dardaarmi lahayd nimanku iyaa kaa baxsanin soo maaha si fiican dagaalka u gal maya nabigu wuxuu kula dardaarmay fa wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahida khayrun laka min an yakuna laka humrun na'am nabigu kula dardaarmay ilaahay baan ku dhaartay mid quro kamida gaalada in ilaahay ku soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan gelakiisa asas
يعني إن ودنك فرطان وغنيمة يحول بدن هشام وتلهذا قال دينا والله حولنا واكسو هلي وحكى فائدة بدن بالنبي قولي متكمدين الدين تقاطه marka asalka qofka mu'minka hatta haduu goob dagaal joogo dadka la maaha hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha hadafkiisu waa dad inta inay faafto hadafkiisu waa inuu dadka naar ka badbaadiyo qof gubanaya haduu ka soo horbax ma xadsabayn lahay qof dab ku dhago ololaya haduu ka soo horbaxo wax kale kama fakarteen koow waxaad ka fakari lahayd maxay inaad bakhtiiso ma isodhan lahayd وهربت كل واحد أقبل يوصي السعودية شيء وكبارة بل وحكوسي جيران كجارسي ساعات يا وعقفر يعني منتالتي قفك مسلم كي نقالة معها تذكرين حولك هشام معها منتالتي قفك مسلم كي معها ضدك وين يدينطان منتالتي قفك مسلم كي وحوي ضدك وين يدين تقعده إن ضدك بدبادان أدون كودنا بدبادان آخرة دودنا بدبادان سيدا وجد النبي وحلي قف قرا كوهان هنا كاغا خير بدن إن تقال عس هشو أهلنا مركا نبي عليه الصلاة والسلام مرة دوكت الماء أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أما خير الناس أنفعهم للناس دتك وحا ألا وجه عليك دتك وحتر بدن أما وت الماء دتك وحا وخير بدن كدتك محي وقول نفعك بدن له أما النبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامية مثلا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكتيس يا السماء واحد دقن يدولك واحد دقن حتى قرآن جدا قدك كتشرته أما كلونك بدأ كتشره وحي كصلينا إياه يعني إلهينا أن حريستي سوسينا إياه مخلوقات كنا إلهي بي وحي ويدين إياه محي إلهي ندم بقوة دافعونا حريسته على معلم الناس الخير قفك ضدك خير كبره أيها الأحبة صلاة دي بلادي ما يبان في ليها سو كوبينا وحي نكو كوبينا nolosha waa inaad contribution ku yeelataa nolosha waa inaad qof waxtar noqotaa nolosha ma aha inaad qof dheeraad noqoto oo wuxuu cuno iyo wuxuu xoogsado tiisa ka fakaraya inaad noqoto ma qofka muslimka dhaqanka lagu yaqaan markaa waa maxay waa qof waxtara oo waxtarkiisu sida anbiyada ilaahay uu ka waramayo ilaa iyo gaalada ay gaadhayaan inaga muslimkii baaba inuu ficlaan maxaynu gaal anfacnaa muslim oo dhanka kaalaya intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayaan fiicin u gaadhaynin ilaahay waxaan ka baryaa subhanahu wa ta'ala inuu diinteena ina fahamsiiyo inaga yeelo kuwii qumanaada dadkana qumanaanta ugu yeedha kuwa waxtara sida nabigu sheegay alayhi salatu wasalaam in rabbi inaga yeelo wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin